halkan booqasho ku yimid wafdi uu hogaaminayo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliyeed mudane Xasan Khayre Ali wafdi uu hogaaminayo oo ay ka mid yihiin wasiirka qorsheynta iyo wasiir dawlaha arrimaha dibadda iyo qaybo kale wafdiga ka tirsan galabtaan ku soo dhaweynay Addis Ababa waxayna halkan u yimaadeen in booqasho gaaban oo muddo maalin ama laba maalin qaadan doonta ay ku joogi doonaan wadankan Itoobiya oo uu ku marti qaaday ra'iisul wasaaraha dalkan mudane Abiy Ahmed muhiimadda ugu weyn oo muxuu ahaa wafdiga prime ministerka halkan u yimidna waxay tahay in isu soo dhawaanshaha labada wadan iyo wax wada qabsiga ha noqoto dhanka amaanka iyo nabadgelyada iyo xasiloonida gobolka ha noqoto mid gaar ahaaneed oo labada wadan ka dhaxaysa ha noqoto iskaashiga xagga ha noqoto waxbarashada kale oo dawladda Itoobiya ay scholarship ay siiso dawladda Soomaaliyeed iyo mid ugu weyn oo ah heshiis hore u jiray barnaamijkan uu ogaa oo ahayd in la sameeyo guddi isku dhaf ah oo high level ministerial committee ah oo labada dawladood oo Soomaaliya iyo Itoobiya oo guddigaas oo muxuu ahaa ka shaqeyn doona siina wadi doona wada hadaladii iyo safgaradkii xukuumadda Soomaaliyeed madaxweynahana uu isagana sidoo kale halkan mar u yimid ay ka wada hadleen marka muhiimadda ugu weyn wafdigu u yimid waa inta ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisa wuxuu kulamo la yeelan doonaan xukuumadda dalkan Itoobiya oo ugu sareeyo prime ministerkooda Abiy Ahmed waxa kale ay la kulmi doonaan African Union commissionka Musa Faqi way la kulmi doonaan